uu yahay dalka Mareykanka. doqon kan ogsoonayn halka lagu dilaaye dahar hoosta laga qoday inay duumiisa weeye weelkii dalooshada biyaha ka daatee daafaca kor iyo hoos docna lagama maarmee milatarka dalkeeniyo ka shaqeeya dibadda. waxay ku eegaan isku duubnidoodo madaxda cadayo askartoo dadaasha dalka waxay ku eegaan isku duubnidoodo madaxda cadayo askartoo dadaasha daryeelkiyo waxgaradka lagu gaadhi daraje daryeelkiyo waxgaradka lagu gaadhi daraje roobku da'ayay duhurkiyo habeenkii ma dhigan dirayskii wadalaalin guudkiyo dusha naga hadhayse doronayaal aan dabcaynino dariiqii kastaba ku diyaaraho
dusha dadka wada ilaalsha faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal fashilmay oo kooxda argagixisada al-shabaab ay saaka aroortii ay ku qaadeen deegaanka ceelsaniini oo halkaasi fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. kooxda argagixisada al-shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday waxa ay ku qaadeen saldhigga ciidamada ay ku leeyihiin deegaanka ceelsaniini halkaasi oo ay ciidamada ay ku fashiliyeen gaarigii koowaad oo ay qaraxyada ka soo buuxiyeen argagixisada al-shabaab. ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa toogtay dhagarqabayaasha argagixisada al-shabaab ee soo qaaday duulaanka fashilmay iyagoona halkaasi ku soo bandhigay meydadka argagixisada al-shabaab. saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa warbaahinta waxay u xaqiijiyeen in ku dhawaad 45 ka tirsan argagixisada al-shabaab lagu dilay weerarkii ceelsaniini waxayna saraakiishu sheegeen in ay halkaasi ku gubeen gaadiid qaraxyo ah oo ay ka soo buuxiyeen kooxda nabadiidka al-shabaab. sidoo kale saraakiisha ciidamada ayaa waxa ay soo bandhigeen hub aad u fara badan oo laga furtay kooxda argagixisada al-shabaab. أحد كلمة صدقه من دادور كمانتا دهور مشيان مرو من دادور كمانتا دهور مشيان مرو أحد كلمة صدقه ليو تبدأ بكوما منو دخرك علوسيو كما دايو عيدا داي وحدان باند القاتي وان دنبيتيو من دانا بعد ما دونو ما دوكسدو وما يسيقاي
isku xiraha Turkisom iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada kumaandoosta ee noo yimid soo dhawaada farxad gaar ay noo tahay maanta inaan soo dhaweyno oo aan ku soo dhaweyno dalkiina hooyo waxaan leenahay soo dhawaada dimaatinkiina wuxuu noqon doonaa insha Allah dimaatin macno weyn u sameeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mar labaad ku soo dhawaada dalka ku soo dhawaada hawsha iyo waajibka cusub ee aad la qaadan doontaan baajadkii in ka horreeyay ururkii koowaad labaad iyo saddexaad soo dhawaada in leenahay waxaan soo dhaweynayaa wasiirka gaashaandhig والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تلفينك عيدك حقوق الدولة الصوماليات ملحق أما ملتري أتاتشيغي ولا له تركسم أما تركي تليها تركسم كلية تركسم صوماليات هي تليها تركسم كلية تركسم ولا له تركيا saraakiisha saraakiil xigeenada dhammaan iyo kumaandooska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ururka gorgor ee qaybtiisa afaraad dhammaantiin bahda saxaafadda waxaan idinku salaamay salaatu islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacd salaam maanta waa maalin noo farxad badan waxaad xasuusataan 120 cisho ka hor ayaad waxaad ka baxdeen dalkiina hooyo waxaad muujiseen mas'uuliyad waxaad muujiseen aaminaad waxaad muujiseen runtii karti inaad dalkiina wax u soo barataan oo dibna ugu soo laabataan oo si dalkiina iyo dadkiina iyo diintiinaba aad u difaacdaan aad idinka kaga mahadcelinayaan runtii taliyaha ayaa ka dhawaajiyey waajibaad cusub shaqo cusub ku soo dhawaada waxaad ka mid tihiin aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saad og tihiin waxaan ku jirnaa dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad waxaan ugu faraxsannahay inaan haysanno ama aan helno wiilal dhalinyaro ah diyaar u noqday inay bixiyaan naftooda cirdigooda sharafkooda inay dalkooda hooyo u bixiyaan si ay ugu difaacaan diintooda si ay ugu difaacaan dalkooda hooyo waa la socotaan dalka dhibaato badan ayaa ka jirto waxaan la dagaalamay dad isku dhaqan aan nahay oo muuqaalkeena leh oo urur al-shabaab la yiraahdo iyo Daesh waxaa idinkaga fadhiyaa ummadda Soomaaliyeed idinkaga fadhisaa inaad ka difaacdaan inaad ka xureysaan inaad sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed aad soo celisaan ilaahay xamdigiisa waxaan ognahay inaad geesiyaal aad tihiin waxaan aad ugu faraxsannahay inaan ka dhalanay ummadda Soomaaliyeed aan haysanno wiilal iyo gabdho oo dhammaantoodaba runtii geesiyaal ah taariikh ayaad ku laheedeen geeska Afrika waxaan rajaynaynaa taariikh ka fiican inaad samaysaan runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo runtii waqtigiisa ugu badan uu geliyey si uu dhisi lahaa ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa sidoo kale aan rabaa inaan u mahadceliyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo isna habeen iyo maalin runtii ugu shaqeeyo si inuu ciidanku uu member u ka yahay oo kale ciidamadu u garab taagan yahay isigana aad ugu mahadcelinaynaa runtii waxaan soo gaarnay waqti aad u fiican maanta idinka ayaa soo laabateen maalmaha soo socdana waxaan diri doonaa ururka shanaad insha Allah ta'ala meelaad wax ka soo barateen iyagana sidoo kale wax ugu soo bartaan waa maasantiin aad idinkaga mahadcelinaynaa anaga hadda wasaaradda gaashaandhigga hayna garabkiina ayaan nahay hiili hooba insha Allah ta'ala idin garab taagannahay guulaysta Soomaaliya ha guulaysato Soomaaliya ha guulaysato ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ha guulaysto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ha guulaysto insha Allah ta'ala muuqaalkiina wuxuu jibinayaa cadawga ummadda Soomaaliyeed